jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka socday laamaha xisbiyada Somaliland iyo ururada bulshada ayaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland Marwe Hinde Xirsi Jaamac Gaani oo ka soo degtay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. sharaf noo ah inaanu maanta halkan ku soo dhaweyno annagoo ah jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan dalka Jarmalka oo daafeeda uga wada yimid inay maanta soo dhaweeyaan wasaaradda arrimaha shaqada iyo arrimaha bulshada Marwe Hinde Jaamac Gaani waxaan leenahay Marwe ku soo dhawow qalbi furan iyo shacabkaaga iyo dadkaagiiba ku soo dhawow waxaan farxad weyn noo ah runtii oo halkan maanta kugu soo dhaweynaya dhammaan gudidii jaaliyadda gudoomiyuhu ugu horeeyay ku xigeenka muxaafad iyo mucaaradba qof kasta oo qaranka Somaliland ka yimina jaaliyadda iyo cid kastaaba way soo dhaweynaysaa waxaan leenahay wasiir iyo intiina meesha joogto baan idinku salaamaya salaanta islaamka soo dhawaada wasiir waa maalin nooga duwan maalmihii aan soo dhaweyn jiray wafuudda Somaliland nooga timaada oo wasaaradii ugu horeysay ama wasiiradii ugu horeysay ee haweena noo timaada waddanka Germany gaar ahaan magaalada Frankfurt aad baan kugu soo dhaweynaynaa wasiir Hinde Xirsi Jaamac Gaani oo waxa weeye kamid ah wasiirada xukuumadda waxa weeye madaxweyne Muuse farxad bay noo tahay inay Jarmalka noogu timaado runtii halkan waxa ku soo dhaweynayaa asxaabtii siyaasadda jaaliyadii guud ee Somaliland iyo waxa weeye haweenweynihii waxa weeye Somaliland ee dalka Jarmalka Hinde waa qof aan waxa weeye aniga farxad bay tahay 7 sanadood ka hor bay isugu ay dambeysay ilaan maanta ku soo dhaweeyay Frankfurt Airport waan soo wada shaqeynay oo 2012 waxaan ka wada shaqeynaynay waxaan ahay gudida qabanqaabada ciyaaraha gobolada Somaliland. Hinde Jaamac Gaani wasiirka soo dhawow ku leeyahay Germany ku soo dhawow kolay qoladii ugu horeysa sheegtay inaan Frankfurt Airport joogno haddaan anigoo ku hadlaya magacii xisbiga kulmiye waxaan ku leeyahay kolay isku bahbaynu nahay ku soo dhawow Germany aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ku soo dhaweeyo Frankfurt Airport dhammaan dadweynaha ka qayb qaatay iyo jaaliyadda Somalilandba waxaan leeyahay ku mahadsantihiin Hinde waxaan leeyahay dadkaagii ayaad u timi insha Allah waxyaabo waad nagala kulmi doontaa wanaag badan insha Allah bidmillaahi kariim waxaan doonayaa inaan ku dhahdo soo dhawow wasiir Hinde Jaamac Gaani oo runtii ah shakhsiyad aad u qiimo weyn leh oo qaranka hawl weyn u haysta farxad bay noo tahay maanta inaan ku soo dhaweyno Frankfurt Airport mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay shacabka reer Somaliland oo isku duuban mucaarad iyo maxaafidba ku soo dhawow dadka halkan jooga waa qaran baa nagu filan qaranka ku soo dhawow haddaanu shaadhar badan huwanahay oo xusbiyo ah waxa nagala weyn qaranka marka qarankan kugu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka Axmed Saalax Cabdi Dheere oo munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay doorka wasiir Hinde iyo wasiirada kale haweenka ay ka ciyaaraan horumarka qaranka waxaana uu fariin u diray madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan halkan aan uga sidhiibayaa Hinde fariin inay gaadhiso madaxweynaha Somaliland insha Allah hadii la yiraahdo waddankan Hindi timi waa waddan ay maamusho gabadh Marwe ah faroomeerkan la yiraahdo iyaduna waxay matashaa haweenka qaranka Somaliland ayay Hindi matashaa maanta booska ah ay ku matashaa inay booska haweenka uga badiso hadii la yiraahdo ay fariinta madaxweynaha gaarsiiso madaxweynahana cadaadis ku saarto si marweyn badan u magacaabi lahaa oo isku shaandhaynta u dambeysay kamaanaan arag marweyn xilal loo magacaabo insha Allah hadii la yiraahdo gabadhii wasiir Hinde Xirsi Jaamac Gaani waxay bulshada reer Somaliland ee dalka Jarmalka uga mahad celisay soo dhaweynta qiimaha leh ay u sameeyeen waxaana ku bogaadisay midnimada iyo wadajirkooda dadaalka iyo juhdiga aad geliseen inaad igu soo dhaweysaan waddankan Jarmalka ee aad jaaliyadaydii ka tihiin ama hablihii iyo inamadii Somaliland u ahaa ee jooga Jarmalka aad tihiin waxaan idinka raali gelinayaa runtii dileedka ku yimid diyaaradda kaasoo aan ahayn mid aniga xaggayga ah ee guud ahaanba diyaaradda ku yimi sababayna inaad ilaa iyo 6 maqribnimo aad joogtaan garoonka diyaaradaha Frankfurt aad baan idinka raali gelinayaa waxa farxad ii ah inay halkan ku dhan yihiin xisbiyada qaranka Somaliland uu leeyahay run ahaantii waxyaabaha socdaalkayga saldhigga u ah ee marka laga yimaado waddanka Talyaaniga oo aan shaqo u imi intii ka dambeysay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd isdhexgalka bulshadayda in aan la kulmo iyo in aan u sheego
xisbiyada mucaarad iyo muxaafid inaynu ku nahay markaynu dalka hooyo joogno hase yeeshee jahliyaduhu dhammaanba dalka ay joogaan dal kastaba ha ahaadee ay yihiin bulshadii Soomaaliland. Zakariya Jeylani, SAF TV, wararka dalka Jarmalka.